ma waxaa la rabaa in la badbaadiyo ninkii marwadiisa gubay canugiisa caloosha ku jirayne nafta muutiyay waxaad isweydiinaysaa waa maxay sababta maxkamadda ay maanta go'aan u gaari weysay maxaa eedeysanaha kiiskiisa loo sii daba dheereena ma waxaa la rabaa in la badbaadiyo ilaa muran dheer oo waqti qaata kadib intaasoo dhan waad isweydiinaysaa daqiiqada yar kooban ayaan kuugu sharaxi doonaa waxaan ku tusi doonaa qaladaadka ka dhacay iyo wadada tooska ku tusayso in eedeysanaha uu yahay ninka marwadiisa si sax u gubay waliba iyadoo aan gambasho lahayn laba qof ayaan sheekadooda soo qaban doonaa isku day inaad fahantid shaxaa soo qaada fadhiiso warbixintana sheer garay waxaan ku tusi doonaa go'aan aad ka gaari doontaa qaladaadka muuqdo ee ka dhacay laakiin muujin karo tilaagi inuu yahay ninkan xaaskiisa lagu eedeeyay waxaan ku soo qaadan doonaa laba nin oo kaliya Abdifataax Barrow Samweyne ninkan aad u jeedaan waa ninka kiiska baaraha oo dhan gacanta ku hayay ninkan labaad Axmed ayaa la dhahaa waa ninka garaashka iska leh sheekadeeda labadooda oo kaliya ay dul istaagi doontaa dabadeedna muuqaalka soo gabagabin doonaa Axmed Barrow oo ahaa baaraha kiiska oo dhan isaga ayaaba ka muuqda tartar qalqal iyo xasilooni la'aan mar wuxuu leeyahay iyo mar kale wuxuu leeyahay isma qabanayaan su'aalaha marka la weydiiyana jawaabahooda ma ahan kuwii mudnaa inuu dhiibo baaradan isagoo la weydiiyay xilliga lagu soo wareejiyay ninkan eedeysanaha ayuu ku yiri 24 bisha February hada lama gaarin ninkii qareenka ahaa ayaa dhahayo lama gaarin waqtigaas maxaa ka qaldan dabadeed ayuu dib isku saxaa mar kale waxaa la weydiiyay waqtigan ninkan nolosha lagu soo qabtay ee nabasugida soo qabatay hadana uu keeni waa su'aasha waqtiga saxan taasoo ay media isla maalintii bay soo bandhigayeen hadana isagu wuxuu leeyahay taa nabasugida la weydiiyo waxba kala ma socdo hada nin dhan oo kiiskiis adigu baara ka tahay sidee marka waqtiga la soo qabtay iyo waqtiga adiga lagu soo wareejiyay sidee u ogaan weysay waa qaladaadka ugu horeeyay ee ka dhacay ninka baaraha mid labaad ee ka dhacay eedeysanaha marka kala hadalkiisa ayaa rabaa inaan mar kale ku tuso mar wuxuu leeyahay Abdifataax Barrow eedeysanaha waa la kulmay waa la sheekaystay qaabka u dilay ayaan weydiiyay ama qaabka falka uu dhacay wuxuu leeyahay shidaalka isaga ayaa soo gaday xaaskiisa ayuu u keenay xaaskiisana guriga dhinaciisa ayay baranbarada iyo waxyaabaha guriga dhibaatada ku haayo shidaalka ugu bilbilaysay dabadeed isaga ayaa u yimid wuxuu yiri cuudkan aan haayo waxaan doonayaa inaan guriga kugu gubo si kaftan ahaan iyadoo kaftanka uu socdo ayuu dabkii kacay sidaane waxa ku dhimatay oo dhibaatadii ku soo gaartay marwadii guriga ninkan odaygana gacanta ayaa dhaawac ka soo gaaray cadeyn kale ma jirtaa uu bixiyay cadeyn kale uu bixiyay waa jirtaa sheeg maxkamadda u sharax cadeynta kale uu bixiyay waxay ahayd xaaskii yaanay shidaal ii dirsatay shidaalkii waa soo gaday shidaalkii xaaskii waxay ku isticmaali jirtay in guriga meesha yar oo quraanyada iyo waxyaalahaas ay ka soo baxaan baranbarada iyo waxaas ku shubi jirtay ayadoo ku shubaysa marka aan cuud la soo dul istaagay qololkii aan cuud ku shidaayay cuudkii gaaray wax ku farc ciyaaraas dhaawire cuudkii gaaray ayada basiina gacanta ku wareetay saasoo dabka ku qabsaday mar kale hadana sheekada sidoo u wado wuxuu ku geen doonaa wuxuu leeyahay guriga qolka fadhiga ayaan soo gubay ee kanna ka bax waa gubi doonaa oo ma doonayo qolka sariiraha jiifka anigu aan isticmaalayay inuu nin kale adiga kugu qabo waan diidi doonaa maseer dartiis ayuuna u soo gubay marka hore qolka yar dabadeedna qolka weyn ayuu yimid qolka weyn markuu yimid oo uu gubayna iyadu way ku jirtay way ka badbaadi weysay cadeynta labaad wuxuu ku yiri tan marka laga yimaado cadeynta labaad wuxuu ku yiri wuxuu noo sheegay in markii habeenkii uu soo laabtay ay islaanta xaaskiisa marxuumad ku tiri guriga ma seexanaysa caawa adoon u furan kadibna asna wuxuu yiri waxay ugu dartay intaas alaabteeda waa qaadanaa wiil alaabta ma qaadanaysa alaabteeda iga tag guriga in nabadgelyo iska baxo fasax saddex saabeennimo xal fiid waay guriga iga tag ma tagay wiil alaabta waa gubanaa wiil kale kulama seexanaa ma dhacayso alaabta uu yiri waa qaadanaa waa gubanaa ma ku sheegay alaabta waxay tahay waa jiifka alaabta jiifka sharax inta ka kulmaya waa horta ayagu waxay degiin qol isku wada xiran oo jiifkana waa gooni fadhiyana waa gooni waa
ما وحو كوش محكمة وشرح حدي وكوش شيء إنه يري وحن جوبيا جيفك جيفك أنا وسوق ذا أما جيفك عن جوبيا إنك الكورة سيحن يعني إنك الكير ماشي جيفك كود جيفك أوكي مركا ماشي تكتب مركا جيفك ما جبنا ما خيبت أصلا ما جبنا دبت ما يعني خلق يرى جواد يرى محمود أي شيء أي لهيد اللي أنا سا خلق كاسي كسوق جت مرة قال كنت فروه وقاعد يجري ماشي جواد يرى كسوق جت الماء سيوك الحريصه خلق وكوك جوين وخلق جواد يرى وهذا الك وإسقى كقري إذا سنها تاسي وحكو عدينيسا إنه إسقى كلا حلي ماشي أنا وحكي عليه كم مقدان ديل كانوا وصيب برير ودعي مركا لا ينقطع دونا مركا هذا الشيء كله وهالكان كان عدي نيكا ندو جدان أحمد أيلا دها ونينكا سكله جوبت جاري وديجي جري إذا سنها لكن ما حاسة لو وصل حش مركا أحمد حلقة فلكن ودعي إسقى موسم كسر نيمبا جراشك وإسقى ليه هاي ولا وعي شقالي وحاوعي جراشك وحي وشيجين إن نيكي سيد علي أها جوري سوق جوي مرودي سنو سوق جوي إسقونا جاري وماشي كلا بحي محكمة ده مديه ويسي ماشي أحمد لجوعي وحاب جوب جوج أها دتكي باورك ماشي لقى قاعدنا الجوجي وقت يا شقاد كجري محاد ديدي إن كوا محكمة ده لهور كانوا نيكان وحول مدي هاي ninka maxkamadda fadhiyo iyo dadka shacabka ah ee loo sheegay oo kaliya ayuu la mid yahay laakiin qofka sheegay ee telefoonka diray ee ninka mas'uuliyadda garaashka iska la wacay waxa la heli karay kuwaas maxkamadda ay imaan kareen waxa dhacay shay kareen su'aasha ninkan la weydiiyay Ahmed waxay ahayd teamka garaashka ka shaqeeyo ma waxay fahmi waayeen ninkan inuu dhibaato soo geystay kaliya waxay ku dhaheen wuu yimaaday gaarigiisa ayuu baxsaday una la cararay dabadeed ayaan banaanka u soo baxnay buuqa ayaan ku maqalnay inuu ninkan dhibaato u geystay sidee marka garaashka baawarta la gelinayo waxaan ku naqaanaa Soomaaliya email kastaba furaha gaariga in lagu wareejiyo xilliga marka shaqada dadka ku jiro sidee ninkan uu arki waayeen gacantiisa guban oo hadda aan u jeedno xilliga ay waliba cusbeed sidee ninka furaha ku wareejinaya garaashka gaariga ninkan markuu soo doontay sidoo ku arki waayay ninkan inay gacantiisa guban tahay xilligaana uu shaki u gali waayay marka uu leeyahay Ahmed markuu Sid Ali markuu gaariga qaatay kadib ayaan banaanka u baxnay waxaan ogaanay in ninkan uu dhibaato soo geystay ma jira garaash Soomaali ku yaalo gaarigaada aad ku xariisanaysid furahana aad ugu tagin oo aad gurigaaga la aadi kartid may waa inaa qasab ninka shaqaalaha xilliga shaqada ku jiro furaha inaa ku wareejisaa markaad imaanaysid ee furaha qaadanaysid ma qofka ayaa ku arki karin fiiskaal ahaan muuqaalkaada waxa ka qaldan qodobkaasna wuu iga soo baxay meesha haddii aad maskax leedahay adigu qodhaada wax yar isku bedel dambi baare halkaana ka fiiri tan saddexaad ee aan rabo marka inaan ku soo gabagabeeyo ninka baaraha ah su'aalaha la weydiiyay oo dhan markaad fiirisid sidii ugu habooneed ugu muusan jawaabin qaarkood wuu tartaray qaarkood isaga qudhiis ayaa kala hadlaya mararka qaarna wuxuu cadeynayaaba in kiiskan inuu sii socon doono hadallo badan isaga qudhiisa uu qarinayo taas ayaana sabab u ah markii ugu horeysay maxkamaddu ay furtay Sid Ali waxa la weydiiyay su'aalo ay ka mid ahayd ma qirsan tahay dambigan in adigu geysatay mise dood sharci ayaa ka qabtaa isagu wuxuu yiri waxaan ka qabaa dood sharciyeysan waxaana diyaar u ahay inaan maxkamadda ku kala baxno qoyska gabadhu ay ka dhimatay iyo anigaba taas oo dadku markaaba dareemeen in ninkan kalsooni badan uu ku qabo inuu badbaadi karo qodobada aan ku sheegay wax yar maskaxdaada dib u celi fikir qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag ma sanadeen